السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله شرفت بدن ملك استوديو كاد كجوجتان فرحad baan idin rajaynayaa nolol wanaagsan iyo caafimaad taama. Saddex arrimood ayaa waxa ay sababaan ninku inuu dhali waayo ama in markaas dhinaca ninka sababtu ay noqoto oo dhalmadu ama ciladu dhinaca ninka ay ahaato. Saddex arrimood baa koomana inta dhaqaatiirtu ay ilaa hadda aadka xooga u saaraan waa jiraan faktarro kale ama qodobo kale oo arrintaas sababa. saddexda koobaad waa in ay jirto blockage ku yimaado dhinaca xiniyaha ninku biyaha inaanay soo saaray ama inaanay samaynayn ama markaa inaanay biyihii baanay si fiican u soo baxaynin. waa qaybta ugu faraha badan ee ka qayb qaadata ninku inuu dhali waayo. xiniyihiisa oo functionally aan normal ahayn, shaqo ahaan aan caadi ahayn, siday markaa ay shaqada u gudanayaan, siday biyaha u soo saarayaan, haddii kalena ay jirto tuumbada biyuhu ay soo marayaan inay xidhantay. inta badan waxay leedahay calaamado lagu garto marka ay xidhantay. laakiin haddii aanay xiniyuhu si fiican u shaqaynaynin oo aanay biyaha samaynayn aanay soo saarayn, waa cillad u baahan kaliya in lagu ogaan karo baadhis caafimaad. dhinaca kale waa nutritionka oo markaas aan levelkii lagu talagalay aan ahayn oo uu jiro lack of nutrition. nafaqada ninka oo kala dhiman oo kala dhantaalan. nafaqadii jidhka ee faytamiinada iyo mineralska lahaa oo jidhka ninku haddii aanu haysan, taasina way ku adkaataa inta badan inay biyihiisu ay nafaqoobaan ama biyihiisu tamar fiican inay yeeshaan. qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan ee runtii sida caadiga ku sababa iyadoo aan medical condition baanay ahayn in biyaha ninku ay u gudbi waayaan dhinaca ugxanta ama dhinaca markaas haweeneyda inay si fiican u gaari waayaan. marka iyada qudheeda sababo kale ayaa loo eedeeyaa ama lagu sababaa in xagga haweeneyda ay noqon karto iyo xagga biyaha inay noqon karto. biyuhu in markaa muddadii life span-koodii ay noolaan lahaayeen inay waqti yar nool yihiin, socodkii ay dabaalan lahaayeen inay waqti yar ay dabaalanayaan, isla markaa inay awood aanay u lahayn inay socdaan, boodistay soo boodayaan inay liidato. saddexdaas sababood ayaa waxay yihiin saddexda sababood ee sida caadiga ku sababa ninka inuu dhali waayo. laakiin saddexdan inta badan sabab ma noqdaan. ninka oo jawi ka soo gaadho dhinaca dhabarka iyo dhinaca xiniyaha, iyo sidoo kale ninka oo dareenkiisu hooseeyo, iyo ninka oo siigaysan jiray. inta badan saddexdaas sababood ma sababeeyaan ama saddexdaa qofku dhalmada kama celiyaan. oo inta badan dadkeenu ay aad u aaminsan yihiin inay dhasha ay ka celiyaan. jug ku dhacda ninka dhabarka ama xininta kaga dhacda, ama sidoo kale inay timaado inuu siigaysan jiray, iyo dareenka kacsiga ninka oo yar. saddexdaas inta badan ma sababeeyaan ninku inuu dhali waayo. intaasaynu ku soo ururaynaayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.